ayaad ku ogaan kartaa in lagula isticmaalayo Facebook account-kaaga ama account-kaaga inuu amni yahay oo aysan cidna kula isticmaalahayn sida ayaad ku ogaan kartaa hadda ima cadayn kartid baa u malaynayaa in account-kaaga uu yahay markaas mid amni ah account-kaaga kaliya waad isticmaalaysaa haddii aad isticmaalayso waxaad u malaynaysaa in account-kaaga markaas uu yahay mid amni ah oo ku nabad gashan laakiin waxaad ogaataa adoo account-kaaga isticmaalaya in awood loo leeyahay in qof kale oo telefoon haysta uu account-kaaga isticmaalo haddaba si aad ugu ogaato in lagula isticmaalayo account-kaaga Facebook waxaad tagaysaa saddexda meelood aan ku calaamadiyay saddexda meelood markaad tagto xaggan settings ayaa ka dooranaysaa settings marka ka doorato xaggaasi bartan ku qoranta markaasi password and security ayaa ku dhufanaysaa marka ku dhufato sidatan ayuu kuu soo saarayaa kabacdi meesha ku qoranta markaasi where you login in ayaa meeshan keeska ka aan ku calaamadiyay ku qoranta si all aad ku dhufanaysaa si all marka ku dhufato xaggan si all marka ku dhufato xaggan wuxuu kuu soo saarayaa markaasi mobilkaaga iyo mobilka kale ee markaas kula isticmaalaya waa meeshaad ku hubin karto in telefoonkaaga lagula isticmaalayo iyo in kale xaggan wuxuu kusoo bandhigayaa dhammaan telefoonada lagu isticmaalay account-kaaga gmail-kaaga ama hadda mobilkan M12 waa mobilka hadda aan active-ka ka ahay ee aan ka isticmaalayo Facebook-ayga haddaba xaggan ka hooseysa ayuu wuxuu kuu soo saaraya markaasi moobilada kale ee laga yaabo inay kula isticmaalayaan Facebook account-kaaga ama haddii ay jiraan moobilo markaasi account-kaaga aad ka gashatay oo aad ku kicisatay laakiin aad ku ilowday haddaba si fudud haddii aad aragto moobil aanan moobilkaaga ahayn saddexda dhibcood ayaad tegaysaa kabacdina waxaad iska dhahaysaa markaasi log out ayaa iska dhahaysaa oo waa iska remove garanaysaa moobilkaaga kale kaas sidaas ayaan ku ogaan kartaa in account-kaaga Facebook uu yahay markaasi mid amni ah